Strategic Initiative for the Women in the Horn of Africa is an inclusive and diverse feminist women rights network. SIHA holds a unique position when it comes to unlocking the potential of women movements in political volatile contexts. This documentary was created by grassroots women journalists who have benefited from SIHA's RAP project. This project supports women to lead and shape the peace and security agenda in Somalia. Through this documentary, the Women Press Club have shared the untold stories of women who have brought change in the society by use of their voice and the inclusion in decision making. ururka haweenka degmada Waaberi waxaa la aasaasay waqti hore. ururka haweenka degmada Waaberi waxay qabtaan shaqooyin aad u badan taasoo ay kamid tahay sidii amniga oo degmada wax uga xalin lahaayeen. waxaa jira gabdho badan oo u xisaabsan wacyigelinta inay ka qayb qaataan ama ha ahaato dhanka nabadda ama ha ahaato dhanka wacyigelinta talaalada iyo waxaaseeto. waxaa jira gabdho Soomaaliyeed oo ciidanka amniga la socdo la shaqeeyo sidii bulshada wax loogu qaban lahaay. maadaama Soomaaliya ay dagaal ka jireen waqti dheer oo maxaa la dhahaa dhibaataduna ay aad u taabanaysa haweenka iyo carruurta ka Soomaali woman ahaan aniga laftirkeyga ay dhibaatooyin badan iga soo gaareen colaadihii waxaan go'aansaday inaan u istaago nabadda inaan ka hadlo maxaa la dhahaa shirarka nabadda looga hadlaayo si haweenku qayb uga qaataan ayna u yaraato dhibaatada haweenka ka gaartay colaadaha. shirar badan aan ka qayb qaatay aniga oo ku saabsan nabadda ku saabsan. shirkii ugu horeeyay wuxuu ahaa mid oo complicated ah waxayna ahayd gabar ayaa la kufsaday. ninkii gabadha kufsaday oo arrintiisii lagu jiro oo ninkii reerkii u xiran yahay baa haddana gabadhii walaalkeed baa inta baxay buu kii walaashii soo kufsaday. macnaha wuxuu ugu aaray walaashiisu wuxuu ugu aaray inuu gabar kala dhibaateeyo. shirkaasaan aan ka qayb galay maadaama aan haween ahaa maxaa la dhahaa aan ka hadlayn markaasna looga hadlayay arrin haweenka markaas caqabad weyn ku ahayd. marka arrintii waxaan ku soo xalinay ugu dambeyn de markaas sharcina ma jirinin dawladna ma jirinin laakiin waxaan ku xalinay at least labadii gabdhood oo walaalaha ahaa oo kala kufsadeen in isla ayagii loo guuriyo qoys ahaan in lagu xaliyo. taasaan ka qayb qaatay xalkiina intaas uu ahaa. sababta loo hirgelina yahay oo loo fulinayaa waxay tahay dadkii shaqada ku lahaa inay mudnaanta siiyaan oo barnaamijkan ay ka hoggaan oo mudnaan badan yani faham badan ka haysanin wacyiga bulshada oo aad u liito. dawladda laftigeeda oo barnaamijkan ku baraarugsaneen oo ayada u baahan tahay in mashruucyo laga siiyo oo barnaamijyo laga siiyo oo tababaro laga siiyo si dadkii loogu hirgeliyo min heer ilaa gobol ilaa qaran ilaa iyo heer international ah. waxaa jira hawlo badan oo environment siiya haweenka oo ay kamid tahay yani haweenka marka la tababaro kale inay dhiirinaadaan inay geesinimo ka qaadaan inay sameeyaan ficilo badan oo ah in ay ka hadlaan rabitaankooda meel kasta ay tagaan ay uga hadlaan hadday training tahay hadday tahay workshop ay dawladdu qabanayso ama hadday meelaha caalamiga oo kale ay tababaro u tagaan يعني waxay u sameeysaa inay dhiiradaan oo ay ka hadlaan xuquuqahooda guul inta ka badan waa loo rajeynaa inay gaaraan insha Allah. manhajadii hore ama curriculumkii hore marka aan fiirno ku jiri jirin mawaadiic ama buugaag ay ka hadlayaan dumarka iyo qiimaha ay leeyihiin laakiin hadda insha Allah waa rajeynaa generation ka soo socda inuu wax badan ka barto empowerment-iga ay leeyihiin dumarka iyo qaabka ay u dhisi karaan nabadda. wax badan waxaa qabto hay'adaha badi qabtaan waxay baraan yani gabadha sida yani xuquuqdeeda ku soo dhacsan lahayd waxay baraan qaabka isku difaaci lahayd self defense ay baraan sidoo kale in leadership noqon karto oo leader noqon karto oo qof hogaamiye ah ay baraan. dumarka iyo carruurtu waa labada qof oo ugu liita maxay tahay hadii la yiraahdo dhibaatada. gabadh uur leh oo uguba oo maxay tahay laba cunug ama saddex cunug oo kala wada haday imka gurigeedii ka soo barakacdo oo soo baxdo aanay lacag ku soo baxdo haysan baabuurka iskama bixin karto maxay tahay jidkay soo maraysaa waxay la kulmaysaa tacadiyo badan jidka ku soo lugaynaysa haddana niman ka hor imanayaan nimankii mar way baaranayaan marna way kufsanayaan. dumarku tacadiyada waa ugu nugul yihiin waana ugu badan yihiin waxa dhibaatadu ku dhacdaana waa dumarka. ragga dib badan aan ku qabnaa haddaan gabdhahan haweenay yeesaan nimanku waxay nagu leeyahay guryihiin ku noqotaan
maxaad doonaysaan dumarka waxaa lagu ogaan jiray in ay maxay tahay guryaha ku jiraan hadda haddii seminaar xitaa la galo oo gabadha istiraahada hadal waxaa la leeyahay adigu mad xishootid haa aad iyo aad u aaminsana waayo waxaa ka mid ah hadda markii dagaal uu dhaco kale ragga Soomaaliyeed gogashu way fariistaan laakiin dumarka way yasaaya laakiin waxa dadku isu keenayo oo labada reer u tagaayo oo dhaxdhaxaadinayo waa haweenka Soomaaliyeed waxa gogasha dhigayo waa haweenka Soomaaliyeed waxa ooynayo oo odayaasha labada dhinac inta maryaha tuurtaan isu keenayo waa haweenka Soomaaliyeed xaqoodana waa la diiday waxa la dhahaa dumarka kama soo qayb gali karaan haddii laakiin dumarka kaalintooda la sii lahay waxa ogahay intaan in ka badan inuu dalka degi lahay waxaan aaminsanahay haddii dumarku ka qayb qaataan wada hadalka amniga looga wada hadlayo amniga wadanka looga wada hadlayo nabadda hadday dumarku ka qayb qaataan sababtoo ah dumarku waxay leeyihiin dareen ka jilicsan oo uga nugul nabadda dareenka ragga ninka ragga wuxuu leeyahay inaan aarsan uur habartiisu ku jiraa dumarkii laakiin waxay leeyihiin nabada naas la nugale taasaa ku cadeynaysa marka kala gaabka u dhaxeeya ragga iyo dumarka marka dumarku inay qayb ka qaataan oo shirarka nabadda looga hadlayo ka qayb galaan kuwa qabaa'ilaad ka qayb galaan kuwa siyaasadda ka qayb galaan ana waxaan qabaa dumarku inay qayb libaax ka qaadan karaan ayna u baahan yihiin in laga qayb geliyo waana mahadsantihiin marka laga hadlayo in haweenka ay ka qayb noqdaan miiska wada hadallada ee ku saabsan haweenka nabadda iyo amniga runtii waa markaan waxaa isleeyahay isbeddel badanaa horta ka muuqda faa'iidada ugu badan oo ugu weyn oo ahaan leedna waxay tahay maadaama hooye ay tahay qofka bulshada isku haya iyo meesha aasaaska nolosha ay ka bilaabato waa cidda sababi karta horta in qoyskaasi uu nolol ku noolaado haddii qoyskaasi nabad nololeed uu ku noolaadana waxaa ballaaranaysa in bulshadoo dhan ay nabad ku wada noolaato waxyaabaha hadda ka hortaagan in Soomaaliya tusaale ahaan ay maanta nabad gaari weydana waxaa ka mid ah in haweenku ay ku yar yihiin miiska wada hadallada maalinkii lagu daro ay nabadda u kacan haweenka dad midoobo noqdaanna waxaa suuragal ah in haweenkoo dhan ay inta israacaan laga wada hadlo miiska nabadda ay ka wada qayb qaataan Soomaaliya oo dhan ay noqoto meel andii ku daadan ay noqoto meel barwaaqo iyo baraare gaarta oo nabaddu ku waarto saasna waa insha Allah wada dhici doontaa isbeddel weyn ah waliba aaminsanahay inuu ka dhici doono sababtoo ah dumar badan oo yani xataa ahaan jirtay gabar aan waxba la barin dhaqankeena hore xataa yani xilli isleedahay jahli badan jiri jiray gabdhaha wax badan lama bari jirin sidoo kale tana ayaamahan waxaa jira wax badan in gabdhihii wax badan wax la baro oo ay noqdaan dad muuqda marka waa rajeynayaa in heer weyn ay gaaraan gabdhaha oo maxay ahayd loo aayi doono ama hogaamintooda anigu waxaan oran lahaa haddii la iga yeelayo gabdhaha inta badan inaan aniga mowqifkayga oo kale aaminsan yihiin aniga waxaan oran lahaa gabdhaha doorkooda hala siiyo. These remarkable women in Somalia have defied the odds, advocating for peace and security with unwavering determination. Their stories illuminate the path towards a brighter future, where women are recognized as key agents of change. Let us join hands in supporting their efforts and creating a more peaceful and inclusive world.